waxa saacadihii ugu dambeeyay barta ay bulshadu ku kulanto haystay Maxamed Maahir waxayna dadku falanqeynayeen siyaabo kala duwan waxa uu noqday wax ay ku maadeystaan dadka isticmaala aaladda Facebook inta ay qoraal kooban soo qoraan ayay oranayaan waa taqaanaayay soo qabo Maxamed Maahir oo halkan ugu yeer haddaba waa kuma ninkan reer Muqdisho ay ka siixan waayeen habeenkii xalay ahaa misana hadal hayntiisu baraha bulshada ay haysato Maxamed Maahir mala garanaya sida uu eegyahay marunba in magaciisa saxda ah uu yahay Maxamed Maahir inta aanan warbixinteena u gudagelin fadlan waxa iga xasuusin hadii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad aragto page-ka Fogaan Arag inaad follow soo dhahdo like na saarto muuqaalkana si share garay si uu gaaro saaxiibo sida adigoo kale wanaagsan xog ay soo saareen hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA habeennimadii xalay oo u dhignay sida tan waxaan madaxda qaranka siinay warbixin ku saabsan khatar ay maleegayaan maafiyada al-shabaab oo ay rabaan in ay ku beegsadaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Maahir oo ah dhagar qabe sare oo al-shabaab ka tirsan in uu wado fulinta qorshaha dabagal ayaan ku haynaa cid kasta oo ku lug leh ayay ku soo koobeen warbixintooda saacado uun kadib markii uu baahay warka la xiriira beegsiga la doonayo in lagu qaarijiyo mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka ayay mar qura bilaabantay in ay dadku isweydiiyaan qofka uu yahay Maxamed Maahir fuliyaha shirqoolka laga baqdinta qabo ee ay NISA sheegtay ma yahay magaciisa magac buuxa sida uu sheegay mar wax laga weydiiyay arintan ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed waxa uu yiri magac buuxa inuu yahay waa suuragal in qof been laga sheegayo inuu yahayna iyaduna waa wax dhici karta dhanka kale Cabdisalaam waxa uu sheegay in isagu uu tuunsan yahay nin hore iskaga soo dhiibay al-shabaab sanadkii 2019 kaas oo markii dambe qaybta sirdoonka Soomaaliya lagu daray sanadkii 2020 isagoo aan marin qaybta dhaqan celinta oo loogu talagalay dadka ka soo goosta al-shabaab isagoona labada magac ee ugu dambeeya ninkaasi uu ku sheegay Maxamed Maahir Cabdisalaam ayaa aaminsan in uu ra'iisul wasaaruhu ku jiro qatar amni oo dhab ah iyadoona ay suurtagal tahay in lagu waxyeeleeyo xafiiskiisa aba munaasabad uu ka qayb gali doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ugu kuma ahan in al-shabaab ay beegsadaan mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee dawladda saddexdii madaxweyne ee ka horeeyay madaxweynaha hadda xilka haya ayaa ka badbaaday weeraro ugu yimid al-shabaab sidoo kale gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yarisow ayay ku dhex qaarijiyeen gudaha xafiiskiisa Maahirna ma ahan in ay warbaahinta ay taqaano ama ka soo dhex muuqday madaxda al-shabaab sidoo kale NISA kama aysan bixin wax tilmaam ah sida qaabkiisa midabkiisa ama wax sabir ah iyo waliba xilka uu ka hayo al-shabaab maadaama ay sheegeen inuu yahay xubin sare oo ka tirsan al-shabaab